oo aanu doonayno inaanu hal iyo laba kan idhaahno bulshadana u iftiimino waxa ay qabanayaan iyo ujeedada ay u joogaan gobolka Awdal dadkaasi waxa kamid ah ganacsade Cabdi Yuusuf Ar oo ninka sagal jadla ah oo nin dawladdu ay maal gelisay oo hantida dawladda ku shaqeeya oo dawladda xukuumadda kulmiye ay naaxisaya ayaa maanta Boorama ragga jooga kamid ah waxa kale oo jira ninina oo Siciid leeyahay oo isaguna leh keybilka iyo sigaarka royalka ee sunta ah oo ma garanaysa isaguna xubnaha ugu waaweyn ee xukuumaddu dabada ay ka soo riixayso ee dadka fangareynaya ee qalalaasaha iyo buuqa iyo rabashka inuu abuuro doonaya waxa kale oo kamid ah nin Siciid Sheekh la yiraahdo isaguna summer time leh saddexdaan in baa niman reer Soomaaliland waa niman isku xaafada waa niman kulmiye ah waa niman musharaxa xisbiga kulmiye ee ka ma garanaysa hayb ay wadaagaan gobolkan Awdalna u jooga in inta ay isticmaali karayaan inta ay isticmaalaan fadqaralo iyo buuq iyo rabash ay ka ridaan gobolkan Awdal bulshada reer Awdal guud ahaan reer Soomaaliland waxaan u iftiiminaynaa nimanka hantiilayaasha ah ee ganacsatada ah ee nimanka waaweyn ee mas'uuliyiinta ah in waxa ay ka shaqeynayaan ee gobolkan Awdal ay u joogaan ay tahay in buuq iyo rabash u dhaco ka bulshada waxaan u leenahay wabal hadda nimankaasi hoosna ha loo fiirsado waxa ay wadaana hal ogaado hay'adaha ku amniga leh hay'adaha ku shaqada leh amniga ee kookayay boolisku uu la socdaa ilaa haddana wax jawaab ah oo ka bixinaya ma jirto hudheelada daxaraga uma soo degin Boorama toddobaaday joogaan waxay iibsanayaan kaararkii inanka yare miskiinkeen hanti haysan ayay leeyihiin $200 baan qaasaysanayna kaarkaaga cod bixinta ku kale oo aan cod balahayn oo kaarna aan haysan bay leeyihiin goobtaad noo tagaysaa noo dhaaro kitaabka gacanta noo saar buuq iyo rabash noo abuur kuyooyada hal arbulshada war waxaan dadka bulshada u iftiiminaynaa wixii halka ka dhacay mas'uuliyadeeda saddexdaan nin baa iska leh hadiiba gobolka Awdal ay wax ka dhacaan anagu waxaanu diyaar u nahay tartan xalaala oo shakhsiya oo ma garanaysa in la galo inta ku dhiiranaysa inay wax ku helaan laalaabka iyo laaluushka iyo buuq iyo fadqalaaladana waxaanu leenahay la iska jiro nimanka shaqadooduna waa noocaasi xukuumaduna waa in si dhaqso ah ay uga hawl gashaa oo maasay xildhibaanku inuu iftiimiyo dadka wixii dib gaarsiinaya anu waxaan ka hadlayaa laba qodob oo taa ka duwan waa ninka madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta jooga Shabeelley iyo sararka ka qudbadaynaya oo ay kaxeeyeen afaraan macna badan lahayn oo meesha wixii lagu hayn jiray ama wixii yara dadka loo daadaadin jiray loo daadaadiyay Shabeelley goormays yaqaaneen goormuu sararka yaqaanay abaar baa ka dhacday abaar dhimasho baa ka dhacday biyo la'aan baa ka dhacay waxa ka dhacay gaajo waxa ka dhacay dhibo fara badan waxa ka dhacay ammaan darro maalinna uma iman sararka dadka jooga mana soo dul joogsan ee galbeedka Boorama manu soo iman inta uu wareegay maanta uu kawa waxaan daba shacbiga eeriyadaasa ee haybahaan anigu aan ka soo jeegalahay war ninka idin yimid waa saylici waa ninkaad garanaysaan waa ninkii wuxuu gudo iyo wuxuu galabaan garanayno waa nin aan siyaasiyan abaalaawa ah oo aan cod cid ugu qabin waxaan leeyahay dadka waxaan ugu baaqayaa maanta shalay buu suldaanku idin yimid doonay nimad waxa la kala dooranayaa maanta waa suldaanka iyo isaga ama isaga doorta oo aad dibtiisa hore u ogeydeen ama suldaanka doorta oo aad deeftiisa hore u ogeydeen intaasaan leeyahay iyagana ku soo koobaya nimanka ganacsatada ay xildhibaanku ka hadlay anigu waxaan aaminsanahay sida iyagu u muuqdaani inay ku ekaadaan ganacsigo oo ay had iyo jeer iska daayaan dhibta shacabkan waa shacabkii wax ka iibinayeen waa shacabkii walaalahooda waa shacabka beritoole ku soo noqon doonaan foodku u dhamaani anigu waxaan leeyahay walaalayaalow dhibta ka daaya dhibta idin ma qalmaana dhibta ka daaya harin yahay saddexdaa ganacsatada ah ee xildhibaanku hore u soo sheegay oo ka wada fadqalalo gobolkan Awdal iyo degmada Boorama maanta nimankaasi waxay ku sugan yihiin magaalada Boorama waxay wadaan inay dadka danyarta ah kaarashii ka soo iibiyay yiraahdaan oo hantidii ganacsiga ay dhulka ka heleen ay kaga soo iibiyaan
dadkan bulshadana waa bulshada ka heleen ganacsiga ninka ganacsigii waxa ka reeban inuu siyaasadda ku dhex milmo way ka reeban tahay nimankaasi waxay cadaysteen ganacsatadii inay siyaasi dhinaca saaraan siyaasiga dhinaca waa la saaraa laakiin way cadaysteen oo way ololeynayaan way joogaan Boorama maanta joogaan waxay ku jiraan inay dadka danyarta ka iibsadaan kaararkii oo yiraahdaan oo nooga soo iibiya dadka danyarta ee waliba ka soo jeeda xusbiga wadani nooga soo iibiya inay yiraahdaan ay gaadheen waxa weeyaan ciyaalka yaryarna soo xala la yiraahdo kaarashii waniga iibsanayay halkaas ay marayaan war ganacsatada tiino rag waaweyn oo muddo kara oo Soomaaliland ka ugu ictiraafsan baatiin doorashadana way dhamaan ganacsigiina u meel dayaan leeyahay nimankaasi ganacsigiina u meel dayaan leeyahay gaar ahaan ninka inuu siciid la yiraahdo ee hantidiisu dhulka daadsan tahay uga xantiisu dhulka daadsan tahay waxa leeyahay hantidaada u turo oo olahaad ku jirtana haddaad joojin weydid jawaabteedu waa heli ta kale bulshada waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Boorama iyo reer Awdalba waxaan ugu baaqayaa waar ilaashada magaciina iyo sumcadiina iyo waxa weeyaan cidda doontaan u codeeyo oo kaarka la iibsanayo iska ilaaliya cidda doonto nin walba ciduu jecel yahay ha u codeeyo laakiin waxa leeyahay kaarka laga iibsanayo waa sumcad darro waa nigi ogaayo ninkii maalintii dhaweed YouTube ku jira wuxuu lahaa gadabuursi waa dan yar oo waxa ku filan lacag yar oo laqan $100 ba ka siisanaa buu lahaa $100 ba laga rumeeyo maanta inuu siciid waxa uu joogaa waa ninkii YouTube ku jira wuxuu sheegay ayaa loo joogaa war dad damiir la noqdo cidda doontaan u codeeyo kaarkiina yaan la iibsan cidda doontaan la siiyo codka waxa leeyahay ganacsatadana mar labaad waxaan ku celinayaa war hantidiina u tudha ganacsi baa tihiin siyaasadda aad ku milanteen dad ka bid weydaan ya oo hantidiina u tudan weydaan wixii ka dhacay idinka ka mas'uula